duqii hore ee degmada Burco Ustaad Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad oo kamida siyaasiyiinta waaweyn ee dalka Soomaaliland ayaa ugu horeyn shirkiisan jaraa'id kaga hadlay xubnaha magacaaban ee komishanka doorashooyinka qaranka waxaanu fariin u diray xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland waana kan isagoo ka hadlay waxaan halkan midowga tibinayaa baarlamaankii aan dooranay taqriiban sanad imiga xilkaay niman dhalinyaro u badan iyo culimo u badan culimana ku jirto niman aad saaxiiboona dhalinyarada ku jirto dhalinyarada iyadii aan waalidka xisbiyada mucaaradka markay hadlayaan ama populationka reer Soomaaliland ay hadlayaan 10 November doorashada qabsanto baa la leeyahay 10 November doorashada waxay ku qabsoomaysaa wixii ay ku qabsoomi lahayd in la diyaariyo oo ah komishanka in la helo komishankii hore waa kala tagay waa qaarkood way iscasileen ama way soo casileenba sifadeed doontaba ha ku dhacday taasi wayna dhaaftay xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha iyo golayaasha qaranka ee waajibka u leeyahay soo magacaabaan ee xubnaha ee komishanka qaranka noqon doona ayaguna wixii waajib ugu lahaa way ka gutoon oo soo magacaabay maanta waxay hor taagan tahay baarlamaanka 28 baarlamaanka iyo xisbiyada mucaaradka ah waxaan leeyahay horta baarlamaanku waajib uu leeyahay waajibkiisa uu ka gudan doono qolada mucaaradkaana waxaan oran lahaa waa inaynu helnaa commission madax bannaan kuwii idinku soo magacaawdeen kuwii madaxweynuhu soo magacaabay iyo kuwii kale golayaasha xaq u leh soo magacaabeen waxaanu xaq u leenahay in commission ka leeyahay waxaanu xaq u leenahay in la ansixiyo waxaanu xaq u leenahay annagu haddana shacabkiina xaq u leenahay in aad ka shaqeysan sidii loo ansixin lahaa waayo waxaad doonaysaan 10 November in doorashada dalka ka qabsoonto doorashada cidda ku qaban lahayd oo komishankan waana markaa u dadaashaa sidii ay u ansaxmi lahaayeen oo nin kastaba ama xisbi kastaba cidda kaga jirta golayaasha qaranka uu u xudxudan lahaa inay durduro ku ansixiyaan si aan muddadu inoogu dheeraan mindiyaana aan qarsanno waxna aan qalanno socon mayso baarlamaanka 28ka ee sharafta iyo ixtiraamka aniga iga mudan ee sida guudna 28 ay matalaan sida gaarka aan gobolkan ka soo jeeday iyo degmada aan ka soo jeedo ama gobolada aan ka soo jeedo aan leeyahay cid ugu matashay ayagana gaar baan wax oran doona baarlamaanka isagoo isku duuban waxaan leeyahay xubnaha komishanka la soo dooray waxay idinku fiican tahay in aan saxiisaan bay idinku fiican tahay si hawlaha doorashadu ay maaragtay u dhaqsadaan oo loo dardargeliyo idinka inta idin dhaaf maayo waxaan u gudbayaa baarlamaanka 20 kanina ee deegaamada anigu aan ka soo jeedo nagu matala golaha baarlamaanka laga soo bilaabo gobolka Maroodijeex degmada Dacarta xildhibaanka laga soo doortay ilaa Sooliyo Sanaag iyo Burciyo Saaxil 20 xildhibaan baan tirsanaynaa inay nagu matalaan golaha siyaasiga war waxaan si gaar ah idinkula hadlayaa way ka fursan weeyeen si gaar ah idin la hadlo deegaanka maanta aan ka soo jeedno cidda maanta miiska saaran leesu sheegi maayo idinkuna 20 xildhibaan baad 20 xildhibaano horta siyaasadda maanta Soomaaliland taala waa siyaasad wax siyaasad lagu sheegi kara ma dhan kastaba waa bahay goblan siyaasad lagu sheegi karo waana ka xiisa dhacay nin kasta oo siyaasad maanta dan ka laha waxa tiifiyada laga shubayay rag siyaasiyiinta ay waaweyn ama taageerayaashii xusbiyada saddexda ama dawladda taageersana ay shubayaan ee la soo afsheegeen ee la soo aaba sheeganay ragii bahasha danta ka laha waaba ka niyad shabeeba aan waxaan oran karaa maaha siyaasaddan maanta taalo Soomaaliland abahay goblan weey
labaatan iyo xildhibaan maanta muuse idiin saaran miiska waxaan rajaynayaa wax badan oo muuse ka dambeeya inay eegtaan markaan idin leeyahay inay aad ila fahamtaan way fiicanta halka maanta aad joogtaan mustaqbal siyaasadeed baa leedahay haddii maanta muuse tirada ugu badan uu ku soo bixi waayo baag madoobay idinku reebaysaa mustaqbalkiina siyaasadeed iyo ka deegaanka aynu ka soo jeedo umul iyo nin weyn ninna siduu wuxuu og yahay uma warramo baa la yidhi wax rag ugu maahan waa laga horraysiin jiray muuse ma aha muuse uu ka badan yahay inaan runta idiin sheegaana way fiican tahay maxamed muraad baa been ma sheego inaan runta idiin sheegaana way fiican tahay waxaan idinka rajaynayaa oo aan idinka wada rajaynaya anigoo dadka aan soo gaadhinin tiifiyada ee fartooda iyo codkooda iska leh ee aan siyaasi la lahayn ee aan hostage ahayn anoo ku hadlaya afkooda in muuse la ansixiyo 20kiina dan baa idinku jirta inuu tirada ugu badan ku soo baxana dan baa idinku jirta 20 iyo xildhibaan dadka amatashaan oo dhan baa muuse wata haddii muuse maanta halkaa ay waxaan la doonayna uu ka waayo cidda loo raacayo waa idinka siyaasigu baahidiisu waa joogto idinkoo berito cod doonayaa la arki doonaa idinkoo siyaasiyiin kaloo cod doonaysa wadaa la arki doonaa waxaan biyo kama dhibcaan warkayga ugu dambeeyay idinku sheegayaa muuse sida ula xarbidaan ama ugu shaqaysan baa inoo dhexa inaan aad isu fahmnaana way fiicanta haddii xisbiga kulmiye la isku eryanayo oo niman isku beel ka soo jeeda ama isku deegaan ka soo jeeda isku eryanayaan muuse midna muuse ma matelo muuse waa muuse haddii madaxweyne loo cadhaysan yahay oo waxyaabo badan oo laga naawilayay ay ka suuro geli weyday lagu kacsan yahay muuse maaha madaxweyne muuse haddii dana siyaasadeedoo hoose la kala leeyahay ma galo suurtagal ma aha intuu isu soo taago golaha wakiilada cod kursigaa madaxweynuhu u magacaabay loogu ansixiyo inuu waayaa suurtagal maaha dhallinyaro xildhibaanow tan maanta idin hortaa loo qori ha eeginay wax badan oo aad danaynaysaan baa muuse ku xidhan anigu run baan idiin sheegay aad iyo aadna saaxiibaynu nahay oo saaxiibbo aad isugu dhowna waan nahay raggiinna dhammaan tusaale yar baan idin siinaya caynabaan u hadlayay maalintii darajadeeda kor loo qaadi waxaan ugu hadlayay xaq ay u yeelatay inaan anigu hadlo rag ashkhaas oo siyaasiyiinta ka mida baan u hadlayay oo dowladdu baanay doonayno dowladdu bay isku kacsan yihiin oo dagaal dhex maray xaq baa la iigu lahaa inaan u hadlo waayo haddaad rag dhaqan weydo ama oo aad rag yeelan weydo adigii cidluun baa isle caawa jaanis baa haysataan maaha muuse inay wax dhaqataan jaanis baa haysataan halka caawa wax dhigtaan halkaasay inoo oolaysa layskulama yaabo oo laysku ceebsan maayo give and take caynaba maalintii loo codaynayay hal xildhibaan baa ayaa ka hadhay raggii aan maalintii tiraynayaan lahaa war biidii caynabaan diyaar idinkana baan idinka doonaynaa weliba raggii aan lahaa xildhibaankaas isagoo sharaf iga mudan oo xildhibaanadayda anigii matale buu ka mid yahay waxa uu ka eegay dhinac kale oo ah in xisbi mucaaradi wato waana saxsanaa inuu dee ajandaha mucaaradka wato golaha inuu ku banjarayo wuu saxsanaa laakiin dhinaca kale kama eegin idinkana caawatii baan idin leehay xaggan kale ka eega
xaqan yaa watay yaa magacaabay iyo xaqu ku socday xaqaa ka eegina warkayga waxaan idinku gabagabeynay waxa inoo dhaxa 20 xildhibaan ee siyaasadda mustaqbalka kale ee dhalinyarada ah ee mutacalimiinta ah ee waliba marka runta idin sheegaba siyaasi ninka la yiraahdo baahidiisu ay joogto tahay oo baritan noo baahan doono muuso tirada ugu sarreysa lagu ansixiyay baan idin ka fadhin hadii kale halka aad dhigtaan bay inoo oolaysa warka dambeeyay leedin oranayaa ma jiro sidoo kalena duqii hore ee degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad waxa uu ka hadlay khilaafka ka dhex qarxay qaar kamida culimada dalka Somaliland isagoo sheegay inaanu dalku hadda u baahnayn khilaaf diimeed oo cusub isagoo talo waayeelnimo iyo wax u sheeg ahba faray culimada waana kan mar kale culimada maalmahan waa arkay hadallo la su'aaliyay maanta iyo shalay iyo tiig iyo ka horba oo masaa'il sharciya laga hadlayay tiifiyada iyo warbaahinta culimada waxa oran lahaa horta culimadu marka hore waa warasatul anbiya ama dhaxalkii nabiyada ayahay waana insaanka ugu sharafta badan leh khalqiga maanta dunida jooga waayo maqaamka ay fadhiyaan kii nabiyadu ay fadhiyeen rusul halkaas ay fadhiyaan in la iskhilaafayo بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة كونية ومسائش الشرع قال اسكو خلافي لكن دبر بيلادي يهجان بيلادو إلى الله يا رسول كيسهلو علي القرآن كان وقت على النبي محمد نوعي مسألة ذا وحرن لها يا هذا الذي تاجن الميديا علماء سياسيين الميديا كود هذا شرفتي لما ولما محمد هان أنا أقول حب بدن وهاي مسائش على قحضي وصدق كي سنة وجودن بي آدي وجودن دلولي حركات كإسلامية ما قاعد يدورون بحلا بحين عن كل الله علماء ذي شيوخ ذي كرامة ذي شرفت عليه هذا كفر سمو يدون لك واضح الله المسائل الشرعية الاجتهادية وإن اللي صهر فريسا سيدي وسلف وهانشري سيدي أمدني هانشرتي نقول اللي بمركا وينو كان واحد وكدودي سي أمدنا وقفها إيدي ستو بدون كنا أوكل النصتان لكن دلكم ما أنت وما باعنا إنه قلب سياسيات كتيرنا إن علماء دينا أي يدنا يسوقاتوا ما فينا تاوحنا لا يحكوا صدق باشا إنه السهر فريستان هذين نقطة كفرسان واحد أو المصلحة والمفسدة مركز الله يبغى هذين مصلحات ونقطتين اللي السهر فريستو أيضا مسائشن هرب الله جواد الله صدق كل سنة وجودن بيه مسائشن تاجنا إيه haddana maanta hadii ay noqoto in laga fursan waayo in la wada hadlo xakam kalena dawaa jira oo culimo kale oo labadan qolo ay imika wada hadlaysa aan ahayn baa jira dad badan oo dhexdhexaad waa la helay dad ilaahay ku xidhan baa la helay oo xarakaadkan islaamiga ah aan ka tirsanay waxa laga wada hadlayna xog u haya kana waraya culimada inta san kula kaftamay ilaahay subhanahu wa ta'ala sharaftiina kor hayo halka idin dhaaf maayo